halkan waxaa loogu yeeraa dahabka cad ee Lesotho, biyo-xireenka Katsi, biyo-xireenka labaad ee ugu weyn Afrika. In ka badan 500,000 oo barkadaha dabaasha ee cabirka Olombikada ayaa sanad walba ku qulqula dalka deriska la ee Koonfur Afrika. Waa heshiis ay Lesotho ka hesho $200 milyan sanadkiiba, laakiin ma aha mid khilaaf ka maran. laga soo bilaabo biyo-xireenka waxa ay qiyaastii 1 kiiloomitir u jirtaa tuulada Haramokotsi. Dalku waxa uu noqon karaa mid biyaha qani ka ah, laakiin dhammaan dadka halkan ku nool ma wadaagaan hantidaasi. Markii ugu horreysay aan imid nus saac ka hor, gugan oo halkan ka da'ay aad buu u socday biyihiisu. Hadda waa la qalajiyey, taasoo macnaheedu yahay dumarka halkan jooga ilaa 5 saacadood iyo bar in ay sugaan biyaha si ay markaasi u bilowdaan. Xilliga guga uu da'ayay waxaanu la kulannay Montebehelon oo halkan timid 5tii subaxnimo, laakiin inay goor hore timaado kuma filnayn in la helo biyo cusub. xaaladda biyo-la'aanta halkan waa mid aad u xun. waxaan u halgamaynaa sidii aan biyo u heli lahayn. mararka qaarkood marka uu roobka da'o ay dhintay ayaa xataa biyaha dhex socda. marka ma lihin ikhtiyaar kale oo aan ahayn inaan meydka iska bixinno kadibna aan cabno, xitaa haddii ay wasakhaysan yihiin biyahaas. si joogto ah ayaan u xanuunsannaa. xitaa carruurta yar waxay cabbaan biyahan, waxaana ku dhaca xanuuno oo ay ka mid tahay calool xanuun. mararka qaarkood markaad halkan biyaha aad timaado waxaad adkaysaa gooryaano yaryar oo ku jira biyaha, laakiin weli waan cabnaa sababtoo ah ma jirto qaab aan ugu noolaan karno biyo la'aan. caaqilka tuulada Hooyan Ketiza ayaa ii sheegay inkastoo ay jiraan ballanqaadyo 5 sano ka hor ah oo dib loogu hagaajinayo dhibaatada, haddana waxba inaanay ka qabsoomin. fariinta aan u dirayo dawladda waa inay halkan yimaadaan oo ay arkaan sidaan u noolla. ma aha inaan haysano biyo-xireenkan quruxda badan ee tuuladayada hareeraheeda laga dhisayo oo aan haddana weli ku noolnahay faqri. taasi ma aha ra'yi aad ka maqlaysid kuwa hagaya dalxiistayaasha biyo-xireenka soo booqanaya, iyadoo mas-uuliyiintu ay aad u jecel yihiin inay ka hadlaan ilaa iyo inta ay noloshu halkan soo hagaagtay. xukuumadda la doortay Oktoobar sanadkii 2022 waxa ay qirtay inay jirto dhibaato, waxaana ay sheegtay inay ku howlan yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen. waxaanu su'aashaasi weydiinay wasiirka khayraadka dabiiciga ah Mahlomi Maleko. hadda waa in aan samaynaa sida Basotho waa qoomiyadda koonfurta Afrika, in aan dib u fiirinno. hadafkeenna ugu weyn waa in aan biyo siino dadka Basotho, kadib marka labaad in aan wareejinno biyaha. iminka waa in aynu eegno sidii dadka deegaanka loogu heli lahaa biyo 2030. taas ayaanu eegaynaa. marka ma waxa aad bixin kartaa dammaanad ah in dadka tuuladani ay heli doonaan biyo nadiif ah oo ay cabaan sanadka 2030? sharad ayaan taas ku geli karaa. halkani waa halka biyaha intooda badani ay ku dhammaadaan. 450 kiiloomitir ayay u jirtaa magaalada ugu weyn adduunka oo aan lahayn il biyaha ay ka hesho. Johannesburg waa xudunta dhaqaalaha Koonfur Afrika, magaalada ugu qanisan Afrika. laakiin magaaladii dahabka ayaa dadkeedu ay sii haraadayaan. tubooyinka ayaa si isa soo taraya ay biyuhu uga dhammaadeen halkan, iyadoo ay ugu wacan tahay kaabayaasha burburay, tirada dadka ee sii kordhaya iyo kaydka oo u nugul isbeddelka cimilada, taasoo macnaheedu yahay in baahida biyaha Lesotho ay sii kororto. laakiin Professor Anya Du Plessis oo ka tirsan jaamacadda South Africa ayaa sheegtay inay jiraan sabab badan oo keenaya cadaadiska in biyaha magaaladu ay kordhaan. nolosha waxaan u baahannahay biyo, dhaqaaluhuna sidoo kale wuxuu u baahan yahay biyo. markaa biyaha Lesotho waa kuwo muhiim ah sababtoo ah waxay asal ahaan kor u qaadaan qayb ka mid ah GDP-ga Koonfur Afrika. dalabka ayaa ka imaanaya meelo kale. Botswana ayaa heshiis lagula galay inay biyaha ka qaadato in ka badan 700 oo kiiloomitir dhuumaha sii mara dalka, laakiin isku dheelitirka faa'iidooyinka dhaqaale ayaa ka hooseeya marka la eego xawliga ay wax ku socdaan.